macallinkeenii hore ablaal markii cid ugu wardambeysana wuxuu aaminsanaa in ardaygii ka baxa iskuulkiisa ingiliishka uu kala mid yahay arday ka qalin jabiyay jaamacadda Oxford oo waalidkana ay ku raacsanaayeen. haddaba cid allaali ciddii aragta macallinkaasi safaaradda Canada ee Kenya loo turjumo waxaa laga codsanayaa inuu iska diiwaangeliyo Atlas College Nairobi. haddii uu dhibcaha ilaashanayo wuxuu ingiliishka ka baran karaa online ama waxaad u shidaa telefishinka CNN isagaa ku horyaalka France ugu diray laacibkii hore ee BBC-da Yusuf Garaad kaas oo sanadii hore ku fashilmay inuu leeliyo xulka qaranka Soomaaliya. wakiilo ka socda kooxda heerka labaad ee Marseille ayaana soo gaaray Muqdisho si ay u dhameystiraan heshiiska xidiga waqtigiisa ku dhameystay Qatarta fargeetooyinka ku yeelan karaan garoonka Aadan Cadde. saxaafadda Guriceel ayaana qoraysa in way aragan uu horyaalka France ka jeclaan lahaa kan Ingiriiska maadaama yaraantiisii uu ku soo hanqaaday daarta ciyaaraha ee Bush House. kooxda federaalka ayaana horyaalada dibadda u dirta laacibkii boos joogto ah ka waaya shaxda macallin garguurte horena waxaa sidan oo kale looga cag wareejiyay laacibka reer Hiiraan Sanbalolshe kaas oo mar dambe gartay in la Juventus iyo naadiga suuqa xoolaha Bootaan Ciise Caalin Xaraan kuna markii cid ugu wardambeysana wuxuu aaminsanaa in taageerayaasha u safraya gobolada canshuurtoodu ay xalaal tahay. haddaba cid allaale ciddii aragta laacibkaas afartiisa gaare ee Sports lagu tixgelin jiray waxaa laga codsanayaa in shaqo uga raadiyaan kooxda xulka qaranka. haddii shahaado lagu xujeeyana waxaad ka shaqaalaysiin kartaan shirkadda Hormuud iyagaa agaasiin kala noqday dhalashada qaranka dhowr xidig oo Soomaali ah kuwaas oo ka been sheegay magacooda xilligii ay iska diiwaan galiyeen horyaalka wadankaas. sirdoonka wadankaas ayaana guddi Sports u xilsaaray dabagalida xidigaha Soomaalida ee magacaankooda ahaan ku isticmaala baraha bulshada. durbana laacibiin ay kamid yihiin Maxamed Deyo, Yool Baxroos, Mustafa Indo, Xuseen Nuuriyo iyo Deeqarooda ayaa ka fikiraya sidii ay magacyadooda deenta lagu leeyahay u soo qoran lahaayeen taasoo ay kaga badbaadi karaan in dib loogu celsho carayshkii ay ka deganaayeen Yaaqshiid, Boondheere iyo Qardho. haddii laacibiintan ay la soo shirtagaan magacooda rasmigana waxay dhumin karaan taageerayaal badan kuwaasoo haatan ku qiimeeya naanaysta haatan laga mamnuucay. markii cid ugu wardambeysana wuxuu aaminsanaa in afka maymaygu uusan ka mid ahaan luqadda qoran ee Soomaaliga. haddaba cid allaale ciddii aragta laacibkaas ilkihiisa cad hiliba u goyn karin waxaa laga codsanayaa in TV-ga ay soo fadhiisiyaan si muuqiisa loo helo. haddii uu fashil dareemayna waxaad u daari kartaan heesaha Cumar Shooli ama Saadiq Sayga isaga carro darteed. ayaa kaalinta koowaad ka galay xulalka ugu badan ee iibsada xidigaha gabdhaha Soomaalida kuwaas oo iska fasaqay heshiiska ay kula jireen laacibiin badan oo Soomaaliya. ila xogogaala ayaana muujinaya in xidigaha gabdhaha ay walaaca ka muujinayaan daayirta wiilasha kuwaas oo qaadan aalmiitada iskuuleysiga ka hor kulamada la ciyaaro 10 habeenimo. qodobkaas ayaan u cuskan karaan haddii dacwad ka dhan loo gudbiyo FIFA. sidoo kale xidigaha wiilasha ayaa iyana dhankooda u soo dukaameysa tagaya suuqyada Yurub iyagoona si bilaash ku heli kara xidig ku soo ciyaar bilowda da'da 14 jirka taa oo raadinaysa kalar madow oo ay u hubeen karto mustaqbal ciyaareedkeeda. laacibiinta wiilasha ayaana sidoo kale ku andacoonaya in xidigaha gabdhaha Soomaalida ay xisaab u galaan dakhliga ayuutada xilli lagu guda jiro kulamada xidigta Hodan Cabdiraxmaan ka dhalisay qaar ka tirsan xidigaha kooxda saxaafadda ee faalooyinka qaldan ka qora kulamadeeda aweyga ah. bilisyonka xidigtan ku hubsatay shabaqa goolhayaha reer Holan ee Daar Isbitaal. goolkan ayaana laga soo toogtay masaafo 29 mitir u jirta dilinta ganaaxa taasoo kicisay dareenka taageerayaal badan kuwaas oo qaarkood aaminsan in goolkan uu soo afjari doono xifaaltanka xidigtan kaga imaanayay 55 jirkan habeen waliba soo duuba. BBC Sports ayaana mudnaanta koowaad siinaysa xidigaha Maxamed Aaltiin Macaan Hilaac kuwaasoo la rumaysan yahay in goolkan maskaxiyan iyagu ay ka soo shaqeeyeen. guushan ayaana xidigtan ku sii haynaysa tartanka East Africa iyadoona sii naaqusinaysa Qatarta kooxda saxaafadda oo haatan
iyo amisom ayaa la wareegay kubad heesashada stadiumka lagu naaneeso godka naarta ee Torotoro markii ay isdhigteen laacibiinta kooxda shabaab oo sanad ku tababaranaya halkaas. guuldarada kooxdan qamiiska ku ciyaarta ayaana loo aaneynayaa xidigaha xulka Mareykanka oo dhowr jeer kulamo kadiisa ugu soo martiyay hawada garoonkaas iyagoona sahminayay Freemasonka ugu macquulsan ee lagu wajihi karo naadiga Ambassador ku duubata wajiga si TV-yada sportska aysan u baahin muuqaalkooda. xagaagii hore ayayna ahayd markii xidigaha kooxda federaalka ay aan arki karin smartphone-ka taageerayaasha isaga baxeen gigidan iyagoona ku bixinaya جديد عمر عبد الرشيد iyo tiro ka tirsan xidigiisa line-up-ka ayaa shalay ka baaqday kulan saaxiibtinimo oo lagu wada inay la ciyaaraan kooxda Ahlusuna gudaha garoonka weyn ee Dhuusamareb Stadium. Gurceel Express ayaana aaminsan in baaqashadani ay ka dambeysay markii kooxdan kubadda ku kordhigrisay Ahlusuna ay shuruud uga dhigeen ciyaartan in laga soo tago halyeeyga qadka dhexe ee Mahad Salaad kaas oo laf dhabar u ah kabtanka lagu qasbay inuu dhimo culeyskiisa Cumar Cabdi Rashiid. laakiin Muqdisho Sports ayaa cadadkeedii hore ee saakay ku soo daabacday in xidigahan ay u baaqdeen soo dhaweynta kabtanada kooxaha ugu tunka weyn dalka kuwaas oo maanta ku kulmaya gigida caalamiga ee Muqdisho Stadium iyagoona ka doodaya nidaamka lagu soo xulayo ciyaartooyda xulkeena qaranka bisha 8 baafinaya xidiga saxaafada Cabdimaalig Coldon markii cid ugu wardambeysana wuxuu wadooyinka Kuala-Lumpur ku maray dacas iyo macawiis u burca kala yimid haddaba cid allaali cidii aragtay xidigaasi aaminsan in xariga lagu soo caanbaxo waxa laga codsanayaa inay ka dhisaan style-ka labiska hadii uu walwal ka qabo jeebkana u sheeg in la qeyrta cas ka caawin doonto si walba oo loo heli karo muuq wariyo caalami ah waxa tabaysiyo taageera iyo marka talada seeto abaalaha adduunyada ikii toos laayo